hormood cable TV وهيلك شعبك nabarada boogtale aan la dhigi karin ayaa kuwa quusta laga gaadho waxaana taas ka dhigan gaashaan la dhexe jaamac aadan ciidle jaamacaasi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna ciidanka ka soo tirsanaa muddo ku siman 40 sano hase yeeshee muddo 15 casho ah la jiifay xanuun cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa isuna diyaarinaya inuu qalliin halkaasi ku galo gaashaan la dhexe jaamac waxa uu fariin u diray taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland isagoo ugu baaqay inaanay ka soo agwareegin haddii ay tiisi noqoto isla markaasna aan loo samaynin aas qaran wuxuuna si cad u sheegay inay dayaceen ciidamada uu muddada ku siman 40 sano ka soo tirsanaa isla markaasna uu ka yahay gaashaan la dhexe wuxuuna dib u liqay inuu waayo qadhadh la soo maray ciidanka booliska Soomaaliland isla markaasna ay marxaladaas jilicsan kaga tageen sidoo kale gaashaan leecaasi waxa uu fariiq qiira leh u diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland isagoo ugu baaqay inuu ka warhayo ciidanka booliska Soomaaliland meel kastoo ay joogaan isla markaasna loo sameeyo cusbitaal iyo dhaqaatiir iyaga u gaara si ay uga badbaadaan tan maanta isaga ku timi oo kale bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu dhawaataa ummadda iyo aniga waxa iga hayo waxaad jirtay inaan ciidanka booliska ku soo diray 1977 intaa waxaan ahaa xubin booliska waxaan lahaa talis waxaan lahaa xudun waxaan lahaa meel aan ku arooro waxaan lahaa meel xanaanaysa waxaan lahaa meel idayda booliska waxa ku dhimaada dhibaatooyin culus aad iyo aad u culus kuwa aniga igu yimid taas baa kamid ah dabarku leega tibiyay baa kamid ah kuwii ugu dambeeyay dhacdooyinka ugu dambeeyay ama doorashooyin naga soo gaaraan ama xilli hawlo adag lagu jiro naga soo gaaraan haddaba waxa dhibaatada maanta ay haysataa ay noqotay waxaan waayay meeshaydii taliskaygii baan waayay waxa la dhexdhigay waan bil dhaxala dad odayaala oo gagaboobay oo marba meel baa la jiiday oo la xiray marba meel ayaa la xiray marka waxa dhibkay haystaa uu yahay waan waayay meeshii aan 40 sanadood ku aroorayay ee hilowga badan ii hayay ee aan islahaa waa meesha ku aasi doonta waan idin waayay haddaan idin waayo waxaan idin leeyahay haddaan dhinto hayaasina taas waa tahay ifka wax la isugu yahay aakhira wax la isugu maahe haddaan dhinto haasina qodobka labaad waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda madinaya madaxweyne waxaanu nahay ciidan booliis ciidan dhabarka qaranka waxaan u baahanahay inaad dhakhtar noo dhisto oo dhakhtarna daweeyo booliis oo dhakhtar booliisiina dhayo oo dhakhtar booliisiina rogo oo dhakhtar booliisi dhakhtar noo noqdo oo aanu dhakhtaraan leenahay dhaxsaaxan ay nafta naga qabto taasa waxa ku jirta kalsoonida boqolkiiba ninkayga sarkaalka gaashaana dhaxaa ayaa waxa mudayinam markuu badiga saaray ugu yiri adeerow ma garanaysa markaas ku adeer ku garan maaye kuma adahay markaas bergii lagu ceelashii boorimi inamadii adeeriyatay buurta kala baxday ayaan kamid ahaa dabadna irbadii baa damaqday way damaqday irbadiyo de waxaan ilaa booliisku wuxuu leeyahay cadow badan booliisku inta dadka u xiraya booliisku inta waxba eriyanaya booliisku inta waxba qabanaya haddii ku eriyanayay meel loo dhigo waa nasiib dar waa ayaan daro wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba waxaan leeyahay waar booliiska dhakhtaroodis oo booliisamu oo booliis dhakhtar haw noqdo oo booliis harrogo oo booliis ku soo hirto intaasaan idin kala idin leeyahay muddo taalay dhakhtarka weyn imisa casha yahay 15 kama yara 15 ka casha taalay dhakhtarka waxa tahay sarkaal ciidanka booliska cid ka timi booliska oo ku soo eegtay ma jirtaa habeen baan nin hogaan ku xigeen caafimaadkii hal habeen kadib cid ma arag waxaan uga gudbayaa oo aan la dardaarmayaa ubadkayga iyo ehelkayga hadeer haya ee ugu daalay waabaya
waxaan idin leeyahay yaanay aasin nimankaas yaanay soo kaydul istaagin yaanay ii imanin ifka igaga tageen yay xabaashay geyn taas waa taa waxaan mahad ballaaran u celinayaa wasaaradda caafimaadka daktarka guud iyo shaqaalihiisa oo runtii ii qabtay wixii aan baahi u qabin markay daawadaydu go'day iyaga ayaa isu yeedhay iyaga ayaa daawadii dul keenay haddeerna dee beerkaaba lagaa qalayaabaa la yidhoo ubadkaygana waxaan leeyahay dee yaa nimankaasii qalin nimankaas horta markay maqlaan dee way soo ordayaane yaanay qalin yaanay taaban hadday tayda ku noqoto qallinka aabe hadday tayda ku noqoto idinku yaasa si kastaba haatee gaashaanla dhexe jaamac caasi ayaa qalin ku mari doona cusbitaalka guud ee magaaladaasi Hargeysa waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar.